labada naadi ayaa diyaar garowgoodii ugu dambeeyay ee wadeen kulanka maanta oo la ciyaari doono finaalkiisa kama dambaysta tartanka ee Jiran Daa'uud. haddii aan ku hormarno naadiga Hagan waxay maanta keensatay laacib u dhashay wadanka Kenya oo lagu magacaabo Ayodo Job isagoona diyaar u ah kulankan inuu ka soo dhex muuqdo waxaana saakay lagu soo bandhigay garoonka kubadda kolayga ee Wish ee galabta lagu ciyaari doono kulan aad u xamaasad badan ay qayb markaasi ka yihiin naadiga Hagan ayaa kulamadii ugu dambeeyay waxa ay sameysay diyaar garowgii ugu dambeeyay iyadoo doonaysa in sanadkan isbedel weyn ay ka sameyso iyadoo hadda sanadkan ay keensadeen hal ciyaaryahan oo kaliya oo u dhashay dalka Kenya. kooxda Hagan kulamadii ugu dambeeyay waxay ka soo gudubtay finaalka kooxo dhowr ah markii ugu dambeysay kulankii ugu dambeeyna Horseed ayay ka soo tilaabsatay oo ay u soo gudubtay finaalka. dhanka kale kooxda Gift waxyaabaha ka cusub ayaan eegi doonaa oo iyagana ka mid ah koox markaasi waaye arag u leh xil ciyaareedkan ay soo bandhigeen ciyaaro ay markaasi loo jecleystay taageerayaasha ay kooxda Gift iyagoo doonaya in sanadkan mar kale ay difaacdaan. kooxda Gift ayaa dib waxa ugu soo laabtay xidigooda waaweyn ee markaasi lagu magacaabo Fidal iyo xidiga kale oo markaasi qayb ka kulankan ay soo ciyaar guulo waaweyn ayuuna ka soo hooyay laacibiintan ee qaybta ka ah. sidoo kale xidigaha dib ugu soo laabtay ayaa waxa kamid ah Faisal iyo sidoo kale Fahim oo isna kamid ah xidigaha ka yimaaday dalka dibadiisa laakiin Faisal waa ciyaaryahan Soomaaliya waxa uu ka yimaaday dalkaasi Kenya waana xidiga muhiim u ah kulankan oo qaybna ka ah waxaana muhiimad weyn ee kulankan ay u leeyihiin labada kooxood inay guulo ka soo gaaraan tartanka kama dambaysta ah waxaana labada kooxoodba ay hadda sameeyeen diyaar garowgooda ugu dambeeyay. ciyaaryahanka kooxda Gift Nani lagu magacaabo ayaa yiri muhiimada ugu weyn ee aan ciyaaraha ka leenahay gaar ahaan kubadda kolayga waa maanta inaan hirgelino yiri ama aan ku xifaaltamno in naadi walba oo dhaqaale gelisa isboortiga ay keento ajaanib la timaada sidoo kalena dad waaweyn ayaa jooga oo soo buux dhaafiya yiri garoonka waxaana muhiimada ay siin doonaa kulanka ciyaarta aad ayaana ugu soo dhex muuqan doonaa ciyaartu waana qurux badan tahay xamaasad ayay leedahay ayuu yiri laacibkan oo Gift ka tirsan. sidoo kale xidiga waaweyn ee Hagan ayaa iyagana hadlay oo yiri kulankan waxaan rajeynaynaa in guusha xaggeena ay soo marto walow weli ay markaasi kulankan noqon kulan aad u weyn oo xamaasadiisa aan la arkin waxaa laga sugayaa saacadaha soo socda inuu markaasi yahay kulan natiijadiisa